saddex qaab oo aad macaamiil badan u kasban karto. qaabka ugu dambeeya waxa weeye kan ugu cajiibsan marka isku day muuqaalkan inaad dhamaysato waa muuqaal aad iyo aad u gaaban. sidoo kale waxaan doonayaa inaad ka codsado muuqaalkan inaad noo sii sheegaraysan si marka dhalinyaro badan oo doonaya business inay bilaabaan uga faa'iideystaan. qaabka koowaad ee ugu fudud waxa weeye in marka aad lacag ku bixiso waxaan aad iibinayso si dad u gaarsiiso. tusaale waxaad samayn kartaa inaad Facebook advertisement sameyso oo marka aad promotion wax loo sameysid kadibna aad lacag ku bixiso oo u samaysan miisaaniyad aad tiraaho maalin walba waxaan ku bixinayaa $2 $5 si marka waxaan aan iibinayo aan u gaarsiiyo dad badan. marka qaabkan waa qaabka iska caadiga ee la isticmaalo waana waxyaabaha aadka ugu badan imika Soomaalida. laakiin waxa loo baahan yahay creative noqotid oo qaabab kale isticmaashid. haddii maanta oo dhan wax xayeysiiso lacagna way ka bixaysaa, sidoo kale suuquna iminka wada xayeysiis weey. waxa laga yaabaa intaasoo kun qof marka in waxaan adigu ay iibinaysay marka xayeysiinaya. marka qaabka koowaad waa qaabka generic ee la yaqaan oo ah inaad lacag soo qaado kadib waxaan aad iibinayso markaad Facebook ama meelaha kale inta geliso aad promotion saarto kadibna markaa dad badan aad gaarsiiso. qaabkan labaad isagana waxa weeye in dadkan adigu wax ka iibsanaya ee adigu suuqgeyn ku sameeyaan. for example macmiil baad wax ka iibsaday waxa markaa adigu ka iibsado ka helay kadibna markaa dad badan buu sii gaarsiiyay. marka qaabkan waa qaab safe laba af la weey. mararka qaar waxa laga yaabaa haddii adeegan ama productkan ay iibinayso yahay mid xun waxa dhici doonta marka dadku inay fariin xun ka gudbiyaan marka customer badan sida ku weydo. laakiin haddii waxaan ay iibinayso wax wanaagsan yihiin customer service fiican ah sameyso dad badan baa marka sameynaya in dad badan kugu soo xiraan. Soomaaliduna aad bay u taqaanaa qaabkan oo waxa laga yaabaa dad wax ka iibsado badan inay macaamiil badan kugu soo xiraan marka ambassadors ku noqdaan. marka tan waxay ku xiran tahay in adeegaaga aad qurxoonaysiiso sidoo kalena dadka aad ku dhiirigeliso inay ku sameeyaan word of mouth ka dadka ku gaarsiiyaan. taasna waxa ku dhiirigelin kartaa qofkina adeegiisa aad customer service waxaan u sameyso sidoo kale incentives inaad sameyso aad tiraaho haddii aad dad nagu soo xidho waxaan ku siinaa abaalmarin noocaas ama iibka dambe discount baan ku sameynaa inaad tiraaxta qofka dambe inoo keento discount buu helaya. marka adigana way kugu xiran tahay inaad incentives sameyso si macaamiilkan ku joogo dad badan kugu soo xiro. qaabka kale saddexaad ee cajiibka ah ayaan idin lahaa waa kan ugu dambeeyo waxa weeye in waxaan adigu aad iibinayso marka aad ka hadasho. okay waana inaad sameyso wax la yiraahdo content creation. tan waxa loo yaqaan content marketing waana waxyaabaha imika aad ka loo isticmaalo. tan laba shay bay ku fiican tahay. number 1 horta waxaan iibinaysaa hadii aad ka hadasho markasta dad badan baa kugu soo xirmaya dad badan way gaarayaan. marka sidoo kale waxaan iibinaysaa hadii mar walba ka hadasho oo adiga lagu barto dadkan kalsooni bay ku qaadayaan. marka waxa laga yaabaa hebel inay ku bartaan productiga ama adeega. marka si kalsooniga dadka u hesho waxaan iibinaysaa ka hadal. sidoo kale waxaan iibinaysaa waxaan yihiin adiga ma hadli kartid. salaamika product scam daawadido kale way adagtahay inaad dadka uga hadasho hadhow oo lagu soo qabanaya. marka waxay cadeynaysaa qofka waxaan uu content ka sameynaya yihiin wax wanaagsan oo marka dadku ka iibsanayaan. marka content creation waxa wax free ah oo lacag kaaga ma baxayo. maanta tusaale ahaan haddii aad tahay macallin dadka wax bara oo online ka koorsooyin ku iibiya haddii aad ka hadasho cilmigan marka aad muxuu dadka ka iibinayso. for example luqadda Ingiriiska dadka barta haddii aad maalin walba ka hadasho Ingiriiska maalin soo qaadato topic gaar oo dadka u sheegto faa'iidooyinka uu leeyahay techniques-ka ka hadasho dad badan baa kugu soo xirmaya adigana followers-ka growth bay sameynayaan. sidoo kalena dadkan wax way ka iibsanayaan. qof baa marka waxaan aad u sheegto for example waxaad ka hadasho maanta in adjectives ka faa'iidooyinka leeyahay si loo isticmaalo kale just example dad badan baa marka arkay videoga waxay isku dayaan dadka marka luqadda inay bartaan ay rabeen adiga marka ka iibsanayaan adiga ku yaqaanaan kalsooni bay kugu qabaan. marka content marketing ka wuxuu kamid yahay marketingada ugu fiican. inta badan waxa wanaagsan in business-ka dadka markasta ku dhex jiray ka hadlaan. ma wanaagsan in qof shaqaalaha u soo qaadatid. waxa wanaagsan qofka owner-ka qofka maamulka inuu ka hadlo productiga si marka dadka kalsooni ugu qabaan. marka muuqaalkeena kaas uu ku eegyahay waxaan rajaynayaa muuqaalkeena wax badan ka faa'iido inoo sii share gareysada badan uga faa'iideystaan. aad baan salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.